ummadda Soomaaliyeed waxaynu ognahay in burbur weyni soo gaadhay ka dowlad ahaan waa burburtay ummad ahaanna waa burburtay dhaqan iyo diin ahaanna waa burburtay qof Soomaaliya haddii lala hadlayana uma baahna in looga warramo burburkoodu xadku gaadhay bale waxaynu odhan karnaa luqadka caalamiga ee maanta jira ayaynu erayo cusub ku soo kordhinay oo loo adeegsado khilaafka ummadaha ka dhex dhaca ولذلك باللغة العربية صوملة القضية هدي مخلا يدهضه ومفهوم عصب أو ضدك أي فهم كران ومضنا نوعس الصوران مشكلة دو حقين جاهي ستة والسكوديين لحلله سيدا ضد بدني تشابيين أو يتبن دولة دودي وحكا بدن بالله دسي وحبا ما دسمان وبربر فئات كمجتمع عردن ساميي هدوية سياسيين هدوية سلاطين عقال هدوية إيفان علماء هدوية هي قبائل وبلشد عردن بربر ساميي waxay isweydiinta la runtii waxay tahay ma dadkaynu ka muran badan oo ka dhib badannay ma nooc gaar ah baynu nahay ka Soomaali jawaabtu waa maya ma nihin bale marka la daraaseeyo cunsurka Soomaaliga wuxuu ka mid yahay baynu odhan karnaa dadka mashaakilka bini aadamka kala kaxeeya ay ugu yar yihiin ama dad la odhan karo waa homogeneous group waa dad diin wadaaga dhaqan wadaaga af wadaaga dhul wadaaga midab iyo muuqaal wadaaga wax lagu kala sooco oo badani aanu oolin marka loo eego dunida dhisan iyada ka diversity badan iyada ka tanawuc badan iyada ka kala gedisnaan badan haddana maxay u anfici weyday waxaasoo dhammiba isweydiinta leh haddii aynu leenahay luqo iyo diin iyo af iyo dhaqan iyo dadnimo iyo hidde iyo wax walbaynu wadaagnaa waay haddana aynu kuwaan wax walba wadaagin uga qaybsan badnaanayn aragtidayda waxaan odhan karaa waxa weeyaan qaabka qadaayaadka loo xallilo ayaa inaga maqan si kale markaan u tilmaamo إنسان بينوني إنسان كان هو لابد من أخطاء ودعاء تدك وحسكو درصدا إلهي قرآن كوحكوت المامي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا تدك وحسكو درصدا بالليل كسب لو هلك وهو سيسوى حلسك درصدا نني قبر سكو درصدا يعني خير النقضان إلى أيام ما لها وصل رئيس بلشة وحسك قدر سيد دولة نماله إيه أنت كرد حيسة بني آدم كهدو وحسك قدر صدابا ليلي وحسك حد قدبه تسوى من طبع الإنسان إلا الذين آمنوا بالليل كوا يرى إيمانك لقى هليمو يعني وقليل ما هم هدينو تهددك اللو ذاقنو وأي معقول تهي bulshadii wax isku darsatay ee wax wada lahayd ama dawladnimo wada lahayd ama dhul wada lahayd ama dhaqan iyo hiddo wada lahayd ama wax ka hooseeya lahayd shirkad lacageed wada lahayd masaajid wada lahayd jaaliyad yar wada lahayd ka sii hooseysa guri wada lahaa intii ugu badan ee Soomaaliya lahayd waxaan odhan karnaa wax badan oo ka mid ah wuu burburay guryaha burburay siiba marka dabadaha u soo baxdo wax badan oo Soomaaliya lahayd baa burburay ma jirtaa tallaabo haddaynu qaadno waxa kan la solf garayn karo xal loo heli karo waxaan leenahay haa shareecada islaamiga waxayna bartay saddex isteb haddii la qaado in mashkilo kastoo dunida taalla la xallili karo بني آدم كنا عن طريق التجربة بوكو أوغادين يصدح دان شيئين وحاول حلله
dadku markuu isqabto ee murme ee wax kala dhex galaan wuxuu intuu doono ha leekaado dil ha noqdo wax ka hooseeya ha noqdo saddex dariiqo mid unbuu bini aadamku u kala baxaa in ay cidi wax cafido oo dulqaadka cidileeday lagu wada noolaado in compromise la sameeyo laysu tanaasulo oo win-win situation la tago kana wax ka daadago kana wax ka daadago xuquuqdiisii si islaax loo raadiyo meel dhexa la isugu yimaado iyo in la garamo oo waxa lagu garamo marka gartu go'do la qaato saddexdaa dariiq midunbaa bini aadamku u kala baxaa laakiin haddaad saddexdaba dhinac marto weligaa waa isa sudhnaanaysaan kala bixi maysaan saddexdan dariiq aynu sheegayna maxay shareecadu ka tilmaamaysaa kow in lays cafiyo waxaa la yidhahdaa aktar min 40 aaya fi lqur'aan baa ku soo arooray hal aayadii way nagu fillayd oo rabbi ka timi oo ilaahay ku hadlayo inuu yidhaahdo iscafiya laakiin aktar min 40 aaya qiyaas 40 aayadood in ka badan oo baabkaa ka warramaya axaadiista nebigaa la mid ah iyo dhaqankii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyaga oo qurayshi dishay oo ka saartay waddankiisii maka uu ka baxay oo daa'if laga soo celiyey oo ilaahay u oggolaaday malagul jibaal inuu 2 buurood intuu qaado reer maka saaro la yidhi ma rabtaa in la saaro ayuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iska cafiyey bale xadiidka bukhaari warinaya waa ka tilmaamaya ibnu mascuud baa wuxuu leeyay waxaad mooddaa inaan arkayo nebigii oo ka warramaya nebiyan shuraaxda qaar baa le isla isagu ahaa cidda laga warramayay nebiyan min alambiyaa aadaahu qowmu nebi nebiyada ka midoo tolkii intay dhibeen wejigiisa ay dhiig ka keeneen oo intuu dhiigga iska masaxo haddana ducaynayoo leh allaahuma kfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun ilaahu tolkay dembigooda dhaaf waxba garan maayaane waa nebi khayr buu wadaa wanaag buu sheegayaa abaalmarkiisa waxaa laga dhigay maxay in wejigiisa dhiig laga keeno haddana wuxuu leeyahay ilaahu tolkay dembigooda dhaaf waxba garan maayaane ayuha alikhwa cafwiga qur-aanku fii suurati shura marka laga warramayo sifaadka dadka mu'miniinta ah ilaahay intuu soo wadayba waxaa lagu tilmaamay waidaa maa qadibuu hum yakfiruun waa sifa min sifaati almu'miniina alasliya waa duul haddii ay cadhoodaan cafiye baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya muttaqiinta jannada gelaysa min sifaati almuttaqiin inay ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maxalu shaahidkumaan aayaadka idin tilmaamaya waalcaafiina can innaas waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwa cadhadooda qarsada ee dadka iska cafiya waa uciddat lilmuttaqiintii bay kusii xidhantay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamaya inay sifaadka dadka mu'miniinta ee dhabka atay laakiin markaan hoos u dhaadhaco dadku amhiladay wax ku fahmaan tusaaluhu waa shay qof maan gaaban iyo qof maan dheerba si fudud ay wax ugu wada gartaan aan tusaalayaal bixiyo anoo ka tallaabsanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qadaaya siyaasa buu cafwi ku isticmaalay ha noqoto siyaasa daakhiliya maalan ghaswatu uxud buu galay ghaswatu uxud markii lagu sii socday nin munaafiqiinta ka mid ah baa bulshadii hadlay wuxuu u arkay nebi maxamed inuu ra'yigiisii khilaafay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay ciidankii uu nebigu watay buu 3 dalooloo dalool jabsaday kun nin bay ahaayeenoo almost 300 oo nin wax ku dhadhow ayuu dib ula noqday waa nebi maxamed oo ciidan wato dagaal ku socdo oo ciidanka laga jabsado dagaalkii baa la galay saxaabuu meel faray inay ilaaliyaan waxay is idhaahdeen waa kaa gaaladii jabtay haniimada wax ka qaatay waa ka soo daadegeen munaafiqiin gaaladii way soo noqotay haddanoo muslimiintii baa dib loo jebiyey markii la jebiyeyna waxay gaadhay ragga badh orodkii ay carareen madiinay ku galeen
waxay gaadhay mashkiladdu in markii dambe la yidhaha nebi maxamed laftiisii baaba la dilay calayhi salaatu wasalaam waxaasoo burbur iyo jab oo dhacay ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu dadka u maamulayo u wadayo qof kasta oo maamul haya waxaan leeyahay war bal aayaddan u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan ghalida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay naxariis xaggiisa ka timi ayaad ugu naxariisatay baa ilaahay leeyahy haddaad mid qalbi engegan ahaan lahayd dadku wuu kaa yaaci lahaa haddana ilaahay kuwaasu wuxuu leeyahy la tasho oo cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydiye washaawirhum fi lamri baa la leeyahy raggaa jabay ee dhibtu qabsatay ee caynkaasaa la leeyahy weliba talada wax ka sii waa nimankii maalintii yaacaadtiina ay dhaafa muu odhanin kuwii ciidanka dib ula jabay baatiin waayo ummad marka laga fikerayo way ka gedisan tahay akhtaada ay koox ka midi samayso walidaalik baa ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala inuu cafiyo waa bulshaduu maamulayay siduu ula dhaqmay bulshadii dabadda ka joogtay siduu ula dhaqmay ee gaalada ahayd markii la yidhi buuraha lagu dumiyo wuxuu yidhi dhabarkoodaan ka rajaynaya qaar ilaahay caabudaa inay ka soo baxaan amase maka markuu furtay reer maki wax ku dhodhow 21 sano 2 sano haddii laga jaro oo heshiis lagu wada jiray 19 sannadood bay nebi maxamed dagaal kula jireen 19 sano kadib sanadkii 21aad oo ay ballankii ay la galeenna ay jabiyeen buu duulimaad ku soo qaaday uu ka xoog badiyo wuu qabsaday waana gaalo maxaad yeeli lahayd gaalo inta isdisheen 21 sannadood colaadi dhexdiinna taallay oo aad ka xoog badisay oo markii horena aan teello kuu dhiganay xataa isku kaa dayay inay ku dilaan oo nebi maxamed wuxuu makaba uga baxay waxay ahayd markii la yidhi madaxa laga gooyo markuu qabtay buu yidhi maxaa u malaynaysaan maanta inaan yeelayo waxay yidhahdeen akhun kariim wabnu akhun kariim walaal fiican oo nin fiican oo in adeerka iyagii dhalay wuxuu yidhi iska taga idhabuu faantum utulaqaa waxa cafiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kastoo sanad ahaan daciif uu qowlku yahay idhabuu faantum utulaqaa culamaa alxadiid tilmaamaan rawaayadda kale xasan ku sheegaan markay ururiyaane ah laa tatriiba calaykum alyowm عموما وحين لنا النبي عليه الصلاة والسلام وحي قارهان ساق الله يالي انت سوغور بيسكو دايرين يدلان وحال اسكو دايرين لغو دلو قادمة وحال اسكو دايرين لغو دلو صن وحال اسكو دايرين لغو دلو سحر وحردن واسكع فيه مدنا ما قبصانين سوغو عيدا كيسي لصور نغضو ميل هرسانيا oo ay seexdeen baa nin gaaleed soo dhex marayo nebiga seeftiisii buu ka dulqaatay oo laanu suran dabeetana wuxuu ku yidhi man yamnacni minka iyaga kaa celinaya iyaga kaa dhicin allah buu yidhi ilaahay baa ka dhiciyey seeftii buu nebigu qaatay isna iyaga kaa dhicin buu yidhi ku seef qaata kii u khayr badan noqo buu iska yidhi ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam iska sii daayay yuhuud khaybar buu qabsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam intay isdileen khaybar markii uu ka xoog roonaaday qabsaday ayay yidhahdeen waa ku casuuno raashin bay u keeneen neef ay soo sumeeyeen baa loo keenay neefkii markuu isidhi dhadhami baa loo warramay inuu sumaysan yihi war yuhuud wixii meeshan jooga isugu yeedha buu yidhi waa la isugu yeedha yuhuud ay run ma ii sheegaysaan buu ku yidhi xadiidkii bukhaariha haddaan wax idin weydiiyo haa baa la yidhi su-aal horuu weydiiyo wuxuu yidhi man abuukum yaa aabbihiina reer maatiin waxay dhahdeen reer hebel baanu nahay ma tihidin waa beentii iyo reer hebel baa tihin buu yidhi waa runtaa bay idhahdeen aan wax idin weydiiyey run ma sheegaysaan haa baa la yidhi naarta yaa gelaya buu weydiiyey waxay idhahdeen annaga 40 casho in yar baanu gelaynaa kadibna waanu ka baxaynaa iyo idinkaa nooga dambaynaya wallaahi waa beentiin buu yidhi idinka ikhsa'u fiiha ku waara idinkaa ku jiraya iday ka dambayn mayno war neefkan ma soo sumayseen buu yidhi markii dambe yuhuudi waa niman intelligent meel ay ka dusaan bay samaysteen waxay idhaahdeen haa
oo maxaa u soo sumayseen waxay dhahan waxaanu isnidha hadduu beenaalayana dee ha dhinto ha idin dhaafo hadduu nebiyayna waa loo sheegi doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska sii daayey waa kuma madaxweynaha maanta dunida jooga inta la sumeeyo odhanaya war iska tag orodoo kii sugeeyey mise waa khiyaana alcudmaa baa lagu qaadaya nebigu uu iska sii daayey calayhi salaatu wasalaam waa la sixray ilaahay baa sixirkii ka furfuray oo qur-aan u soo dejiyey uu ku caafimaaday oo loo tilmaamay meeshuu ku jiro sixirku oo ka soo saaray labid ibn lacsam nin la yidhaahdo waxba lama odhan iska sii daaye waxba looma geysanin yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam qaacidadiisaaba waxay ahayd xadiidkii bukhaari aan isu warinayo man taqama linafsihi qad weligii ma aargoosanin waxa ugu weyne bini aadam dhex mara waa maxay waa dil soo maaha ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi waadaa'un ilayhi biixsaan iyadoo dilka ilaahay ka warramayaba wuxuu leeyahy ninka walaalkii dhiiggiisa wax ka mida laga cafiyo kii wax dilay iyo kii la dilay baa weli qur-aanku walaalo ka dhigaya dabeetana qaatilka haddii dhiiggii walaalkii wax ka mida laga cafiyo reerku baa la leeyahy marka ama ciddii weliyu damiga ahayd faatibaacun ha u raacdaan ninka kan bilmacruuf waadaa'un ilayhi biixsaan isagana haddii cid lagaa dilo saddex hal mid baad leeday inaad qisaas qaadatid oo aad tidhaahda ha loo dilo marka kiisku ku caddaado inaad mag qaadatid oo cafidid compensation inaad qaadatid ama maaha inaad iskaba sii daysid midna aanad qaadanin ayuha alaxiba وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولا مركي إلهي كور رمي وحي واجب كلا قدقي دل إياه قصاص بالله شاقي أي وحلدي فمن تصدق به فهو كفارة له إن تصدق هذا يسكر تعالى المام سؤال شكواد مركا وحي تاي dadka in cidi tanaasusho la iscafiyo qur-aankuna in badan buu inooga warramayaa qisadii xaadithati lifki baa qur-aanku ka warramaya iyo dhaartii uu dhaartay abi bakar inaanu mistax ibnu athaas wax siinin ee ilaahay qur-aanka soo dejiyey waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi yuusuf iyo walaaladii waxay ku sameeyeen oo inay god ku rideen oo uu xabsi galay oo uu dhib oo dhan soo maray oo ay u yimaadeen oo haddana dacaayadeen oo isagoo uu hortaagan yahay oo uu madax yahay ay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu hadduu waxaday kan yari ku ka horreeyo oo walaalahaayeen yuusuf bay leeyihin oo tuuga baa jiray wax beenay ka sheegayaan nimankii godka ku ridoo been ka sheegayo haddana yidhi laa tasriiba calaykum alyowm waa iska cafiyey qur-aanku wuxuu ina barayaa qoysku reerku wuxuu ku dhaqmaynaytay yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu qur-aanku wuxuu ina barayaa reerku goormuu ugu dhib badan yihi ninka iyo gabadhu markay isfurayaan soo maaha marka la odhan karo kayskoodu waa ugu adag iyo waa kala durugsan yihiin labadii qof waa markay furis gaadho ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay haddaa gabadh furtaan idinkoo aanu galmoonin se loo sheegay meherkeedii gabadhaasi xaq waxay u leedahay baa la yidhi meherka nuskii mar haddaanay ninkaba is arag laakiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax waan tacfu aqrabu litaqwa inay dumarku iska cafiyaan oo yidhaahdaan war waxba ha badhabadhayna iska qaado ama ninku uu cafiyo oo yidhaahdo waxba ha badhabadhayna meherkao dhan baan wada bixinaya waan tacfu aqrabu litaqwa baa ilahay leey ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nin iyo gabadh kala tegaya oo raabitadii u dhaxaysa ee go'day laakiin loo sheegaya inay iscafiyaan kaasi waa qadiyadda koowaad mashaakilka bini aadamka dhex mara waxaa lagu xallili karaa in la iscafiyo qadiyadda labaad waxa weeyaan
in sulxi la galo sulxigu muslimku inuu weligiisa sudhnaado maaha acmaasheenna ilaahay baa loo bandhigaa isniin kasta iyo khamiis kasta dabeetana waxaa la yidhahdaa qof kastoo aan ilaahay u shiriik yeelaynin oo ilaahay keligii caabudayay ayuu ilaahay yidhaahdaa dembigiisa waan dhaafay laba see is haysta baa la yidhahdaa labadaa iyaga warkooda dib u dhiga oo ilaa goorma xataa yastalixa baa ilaahay leeyahy xadiiska saxiixa labadaa arrinkooda dib iga dhiga idan haddaynu isa sudhnaanno xataa xagga rabbi dembigeenna la cafin maayo acmaasheenna dib baa loo soo celinayaa intay isu sudhnaanteenu kala baxayso maxaa xal ah bini aadamku reconciliationkan gaaladu waa kuwa yidhaahdaa zero sum game iyo win win situation bay sheegaan inaad tidhaahdo calaya wa calay qisadii ay sheegi jireen qisatu shamshuum shamshuumku waa qisa khuraafiya qisaska banu israa'iil ka tirsan si kale haddaynu u tilmaamno waa mahmaahdii soomaaliyeed ee odhanaysay maxay cadyahu ama ku cunay ama ku ciideeyey bay soomaalidu tidhaahdaa yacni qofka kale waxba uma ogola ama anuu isoo raacaya ama labadayduba waynaanu weynaa laakiin gaalada waxay yidhahdaan win win situationka ka fiican adna inaad guulaysato ka kalena guulaysto labadiinuba idinkoo guul wata inaad ka baxdaan say u dhacdaa waa inaad sulxi gashaan heshiis compromise waa inaad wax ka tanaasushaa isna wax ka tanaasula ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wasulxu khayr wa uxdirat ilanfusu shux ninkii gabadhii isqabtay waxaa la yidhi falaa junaha calayhima an yuslixa baynahuma wasulxu khayr inay dhexdooda sulxi aayaddaas kooban waxaa la yidhaha 3 jeer bay kelimatu sulxi ku soo noqoto ilaahay wuxuu leeyahay wasulxu khayr inay heshiisaan qaacida oo islaax ridaan ninkii iyo gabadha muransani oo qadiyadooda ay wanaag ku dhammaystaan ba khayra baa ilaahay leeyahay markaasaa waxaa la raaciyey wa uxdirat ilanfusu shux naftana bakhaylnimo iyo dhabcaalnimaa lagu xaadiriyey bakhaylku bini aadamku lacagta qura kuma aha maca xuquuqdaada ninkii gabadhu markay iskalaan waa xaqaygii hadduu mid waliba ku dhego waa dhib badanta lama kala furfuri karayo laakiin haddii midba wax ka tanaasulo meel dhex waa la isugu iman karaya ay mushkilad kastoo reerka ka dhaxaysa haddii laysu tanaasulo waa laysu iman karaya ilaahay wuxuu ina leeyahy fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وار إلهي كعب صدى ودبت الدحدين نتالا هكاشية ورب إليه سبحانه وتعالى قرآن كإلهي وحط المام يا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس شرركو خير بكو بتشرو صدح شرون موياني شر صدقية وحلبة حلا يسفريه ودتكو إنه وح صدقة دستان ليسوق شيء أما سما الله يسكف فريه ووناق يخير لقطة شنيه أما عد له هشيسين يبو قرآن كتل المامية وحي انتا كصهرة قيمة ماله نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام وحينه شيء وروحه خير بدن ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصوم ما يدين شيء wax ka fadli badan darajada soonka iyo salaada iyo cibaadadkeenu naqaanay shuraax alxadiith waxay yiraahdaan waa kuwa sunnada ah ama sunnada haata ama mid kale haatee waxaynu naqaanaa qofka muslimka aqligiisa waxa ku jira cibaadadka ugu waaweyn ee Ilaahay loogu dhawaado waa maxay waxaynu ninka hebel waa salaad badan oo habeenkii taagan oo maalintii tukanayo shanta faralku wax dheeraad u sameeyaa sunana وكو أمانة وعبادة أي نرميسني وعنو نانك هبلي أما هو بغلصان أما هو إنتنصان أما سنين بوصو أما خميس بوصو أما أيام البيض بوصو أما كم بوصو نكامل كادر اكتبا وقف صوما وأمانة إنكو أمانة إنو وحينكو أمانة قاعن فرانت وحنا نانك اكتسال ومقادو خير بهدي الله شيغو صدقة أبو بحنية وعبادات عند المسلمين عقل جودة دقي أو يقرن يعني عبادة ألا لو قلنا واضينيتي هذا النبي محمد وحليه تاء برتين وحك فضل بدن مشاقة
هابا يدهدن إلهي رسول كيسيو نبقو حكولي إصلاح ذات البين dadka dhibta dhexdooda oo la hagaajiyo macnaheedu waxa weeyaan inaad soon dheeraada soonto iyo salaado badan inaad tukato iyo sadaqo badan inaad sadaqaysato waxa ka khayr badan walaalka inaad la heshiiso waayo haddii colaadu badato diinta xiiranta oo xanta badanta oo dhib iyo dil iyo mushkiladoo dhan baa ka yimaada ولذلك أيها الإخوة وحنا إصلاح كان النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا السياسة وينوقع ربي وإصلاح ما لن يسوق منبر كتاجم باينا يرو وووية سوقلي حسن ابن العلي وويل ير وين أنتي سودا شيء تبعتنا ويل كي يرابو انتو الصدر ويقو مرنا ضدك ويقا النبي عليه الصلاة والسلام مرنا إنا كان يرو وووية يبو يقا تبعتنا وحو الصحابة دي كويري حديثك الصحيحة إن ابني هذا سيد ويل كي أنا أركيسا وسيد بويري ووايل وقورتي وسيد من سادات الناس تبعتنا النبي عليه الصلاة والسلام بمساد وحو السيد نمدا كوهلا محيتي سؤددي سو حقاي كتمي تيبو شرحي النبي عليه الصلاة والسلام وحولي ولعل الله إلهي سبحانه وتعالى نوحى الله أركائنه كو إصلاحيه قاعنتيسا لبفي أو ووين ومسلمين وكلمة دود ومتو إسهيي إن لغو إصلاحيه الحسن بن العلي وحين نقانا علي بن أبي طالب إيا معاوية تقال الله يدبتي كدح دعضي سقو علي وأركيي مركا كواد دولة نمدا إسلامي قاين للسقوه مركا الدولة السقوه أنت كدب dadka wixii dhib geystay maxkamadda la taago halka qolada kalena cagsiga arkayso leeyihiin dhiigii imaamkii muslimiinta Uthman baa sii qoyan nimankii rabshada geystay hal laga takhaluso maxkamadda hal la saaro kadibna arrinka islaamiga ah la isugu yimaado waa laba ra'yi oo marka sidaa loo eego isku dhadhow laakiin waa laba ijtihaad oo kala durugsan markii wada hadal bilaabmana dadkii rabshada tan ku jiray baa isku dayay inaan wada hadalkan soconin dagaalada bilaabmay 5 sanadood bay saxaabay istilaysay kadib ayaa niman xaramka ku tashadeen mala waaba madaxda muslimiinta waxaan dhiftu ku keenaya aan layna nimanka iyaga ah go'aankii la qaatay fulintiisii علي baa la helay qoladii kale may dhicin على الدلين سقوا صلاة صبح كصاص هذا إلهي يقول دوادين إنك تخلصه أركي مركي ودعي حسن بن العلي أيا الله قد جاي إمام المسلمين ما خليفة المسلمين حسن وحيد هذا سقوا عيدا بقول كنا كل دوته والله رانك رئيس عيدك حق بدنيد وماشي شوكتي ما شرته أيوه حد معي سم مسلم كوه الشيء إنه يسوي كرسي سياسي كذا خليفة المسلمين يسوقه إنه كذا دعوة شيء مسلمين توه الشيء وحق أقبلي معاوية إن لو قدروا ومدح النقضة يقولون لنا هي حسن باك حق لها لكن معاوية لسي إذا وحنا لنا الصلح كرسي مدحوين إنما يو عاصمة يو وحل الشيء يقول والله سيسكره وحوين معها لكن دتك مسلمين تا انسوا الحد حدودا كدعوا ايا وحلو باهي النبي محمد عليه الصلاه والسلام هشيس قالوا له الشيء عيد كلا داي مسلم دحدي داي صلح الحديبيه محو دعاي قالوا النبي يقول له الشيء عليه الصلاه والسلام توصلنا ضدنا دغالك اسك دايا ولبا بنود هشيس كو قرب بنود ادق با كجرتي او كميد ها maxay عدي مسلم ككتماده inaan loo celinin laakiin cidii gaalada ka timaadee soo islaantay in lagu soo celiyo haddaanay fasaxaysanin waanu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwii ka yimi ayuha alaxiba waxaan leenahay sharcigu wuxuu tilmaamayaa alsulxu jaa'isun bayna almuslimiina ila sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraama nabigu wuxuu leeyahay heshiis oo dhami wuxuu doonaba ha noqdee dadka muslimiinta ay ku heshiiyaan dhexdooda wuu bannaan yahay wuxuun baa reeban
heshiiska xaaraan lagu xalaantinimaynayo ama xalaal lagu xaaraantinimaynayo kaas isagu ma bannaana sharciga isbeddel kama dhici karo xalaashii xaaraantu waa sideeda ama wixii ka soo hadha nin iyo gabadh isqabaa wax kastoo ay ku heshiiyaan oo ka soo hadha masalada tani waa bannaantay qadaaya siyaasa qabaa'il dowladnimo wax kastoo lagu heshiiyo oo masaladan ka soo hadha waa bannaantay shareecada islaamiga idan ayuha alikhwa sulxiga macnihiisu waxa weeyaan in laysu tanaasulo qofba wax ka tanaasulo ka dhaadhaco qofba wax ka tago xuquuqdiisii can ridaa wa tiibi qalbin uu kaga tago meel dhexal la isugu yimaado la isku waafaqo qodobka saddexaad yaan ku gabagabaynaya waxa weeyaan haddii labadaa hore la waayo ilaahay wuxuu leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum war ha isqabsanina oo ha murmina haddii muranka iyo isqabsigu dhaco waa fashilaysaan alfashlu fi lluqa iyo dacf waa liidanaysaan dowladnimadiina iyo magaciinnuna waa tegaya isagoo ilaahay saa inooga reebayba haddana wuxuu rabbiina yidhi fain tanaasactum fii shayin marka hore waxaa la yidhaha atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum ilaahay aqbala oo rasuulkiisa raaca oo madaxda ka dambeeya ateeca ila nin haddaad tidhaahdo masaajidkaad madax ka tahay cidina ku dhegaysan mayso dee madax maaha dowladdaad madax ka taho cidina warkaaga qaadan mayso madax maaha laakiin haddiiba ay dhacdo in la murmo oo wax qaldamaan see la yeelaya ilaahay wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shayin haddaa wax uun isku qabataan madax iyo mijaba ilaahay iyo rasuulkiisa u celiyo ka xukum qaata ima kitaab allahi subxaanaه wa tacaala ama sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waayo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya kaana الnaasu ummatan waaxida dadku iyagoo mid qura ah inay iskhilaafeen oo diin la-aan iyo wax timi oo shirki lagu dhacay ilaahay dabeetana uu rasuul soo diray kutubna uu soo dhiibay maxaa rususha loo soo diray waanzala macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaas baa ilahay yidhi rususha kutub baa loo soo dhiibay maxaa loogu soo dhiibay kitaabkan liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiihi baa ilahay yidhi in dadka lagu kala xukumo waxay isku khilaafeen ay ku kala tegan yihiin in la xukuntamaa saddex shay oo quray u baahantay shayga koowaad dadku markuu murmo waa inuu marjaca isku waafaqsan yihin maxaynu u gardhiganaa maxaynu ku kala baxnaa ilaahay qur-aan iyo waxyigaan idiin soo dejiye ku kala baxa buu ina leeyahy bini aadamka caadigii xataa wuxuu gartay haddii la isqabto wax lagu kala baxa inay jirto saa daraaddeed bay umamkan duwalka dhistaa maxaa loo dowladdu waa dad kala wada interesa kala axzaaba kala aragtiya kala afkaara haddana inay wax wada yeeshaan bay damceen waana murmayaan maxaa lagu kala baxayaa waxay idhahdeen distoor iyo qaanuun iyo waxbaa la dhigtay waxaa loo dhigtay in marka muranku yimaado gartu ku go'do lagu kala baxo bini aadamku markuu isqabto waa inuu marjac yeeshaa waa tajaaribtiibaa bini aadamkaa bartay in distoorkan la qoro waxa kan la qoro idan marjacu laba u qaybsama bay culammadu yidhaahdaan mid asal ah oo aan isbedelin oo qur-aan iyo xadiidkii xagga rabbi ka yimiya iyo bay yidhaahdeen mid farciya oo isbedelku ka suurtageliyey oo ah waxa bini aadamku ku heshiiye qorto waxa bini aadamku ku heshiiye qortaa waa maxay ama dastuur ku sheeg ama qaanuun ku sheeg ama heshiis ku sheeg ama laa'ixa ku sheeg ama maxaa la yidhaahdaa magacaa doontaaduu ku sheeg qoraal kasta oo bini aadamku ku heshiiyey wuxuunbaa shardiya ka sarreeya inaanu khilaafsanayn maalan qawaaniinta wadannadu dhigtaan maxaa shardiya inaan dastoorka khilaafsanayn qaanuunku hadduu dastoorka khilaafo isaga baatila fakadalik wax kasta uu bini aadamku dhigto muslimiinta waxaa ugu sarraysa maxay marjiciyadu waa kitaabka iyo sunnaha hadduu labadan khilaafsanya isagaa baatila amaa haddaanu khilaafsanayn wixii maskuutu canhuga ahaaya macnaheedu waxa weeyaan waa lagu dhaqmayaa
إلهي القرآن كوحكول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأردتك إيمانك لغاها ليو عقدك هشيسكي نأوفية بالرب إليه سبحانه وتعالى أنا متعودين شيء مساجد الصومال رق وراق يرى قرآن ودستور يرى لواحي وحاله هذا ملزم بعد كتير تراعده هدي أتكمل تيمم بركو وحكى الله دجستي تدكو حيوها يستارين أنا الدين هي وروا الدين شركات بعد قف وضع الشنو هشيس بعد قراتين شركات تقول رقم ملزم بعد كتير دين ويعني نتراعده وحكى وحبال لجوه الشيء وحود دونها النقطة مر هدانو قرآن يسون خلاف سنين بشركو وحيابه وكوه الشيء وقرطه إلى يوحنا فري وردين هداك على قادتان فاكتبوه بالي قرأ دين حقا يرى العقا أما دي هداي وحسكو درستك ورن وحريتن فاما مالنتايس ما انت وين اسكو فرح سني وهشيس بيننا وحكستا لكن بريتا وين من بكرنا كلا رأي إنه نقرنا وكلا درك كرنا وينو جرا waxaynu isula noqono la inoogu garnaqo oo marka la inoo garnaqayo la yiraahdo kamba ra'yigiisu iyo aragtidiisu waafaqsan tahay wixii qoraa kanna wixii waa baatil markaas ay noqonayaan idan hadaynu rabno inaynu xukuntanno shayga koowaad aynu u baahanay waa maxay waa inay marjiciye jirtaa meel aynu u noqono meeshaynu u noqonaynaa waa maxay imma inay kitaab iyo sunno tahay ama inay tahay furuucda kan dhambashay ilaahay ogoliyay oo ah cuquudda heshiisyada bini aadamku u galo u fiirso nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam heshiisku gaala la galay siduu u qadariyey sulxu xudaybiya waa la heshiiyey isaga iyo gaaladii u diiday inuu maka gala wax ku heshiiyey waxay ku heshiiyeen sanadkan inuu noqdo oo aanu cimraysanin waxay ku heshiiyeen sanadka dambe inuu soo noqdo aanu cimraystaan hub yaro fudud ay soo qaataan waxay ku heshiiyeen 3 cisho qura inay maka joogaan dhow ka baxaan waxay ku heshiiyeen ninka gaalada ka yimaadeen muslimka ee muslimiinta u soo cararay in loo soo celiyo ninkase muslimiinta ka soo cararay dib u rudoobay gaalada u yimaadeen aan la soo celin heshiisyada ka mid ahay waxa dhacday muslimiin inay soo baxsatay oo nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam heshiiskii iyadoo la rabo in la qoraaba jandal yimi ninkii heshiiska gelayay inaanu dhalay dabeetana ninkii wuxuu yidhi kamba ugu horreeya waxaan heshiiska kugula galay kan celi nabigu wuxuu yidhi war kan ii sii dah weli wax maynan qorine ma jirta buu yidhi heshiisba kula geli maya haddaanad kan celin anjisli buu ku celceliyey nabigu kan ii dhaaf ii sii dah waa diiday nabigu saxaabiga wuxuu ku yidhi iska noqo saxaabigu wuu qaylinaya wuxuu leeyahay ma waxaad rabtaan in diintayda layga fidneeyo waa nin torture ka soo baxay oo silsilada ku xidhan yihiin oo isla maanta muslimku ugu dhow yahay oo maka ka soo cararay oo xudaybiye soo gaadho isla ciidanka muslimiinta maanta ayaad geli kartaa ayaad raacdi waxa la leeyahay heshiis baanu gallees ka noqo isbir waxtasib buu nabigu yidhi abu basiir nin la yidhaahda soo baxsadoo madiina yimi dabeetana gaaladu 2 nin bay ka soo daba direen nabiga u yimi waxay dhahay heshiiskeenu wuxuu ahaa ninkii muslim naga soo baxsaday inaad nagu soo celiso haye maxaa la sameeyay markaa kamba soo baxsaday bay dhahdeen soo celi nabigu abu basiir buu yiri wuxuu orad raac abu basiir muxuu kala sameyn karaa wuxuu soo baxsanayay Soomaaliya nabi maxamed aad raacdi nabi maxamed amar wuxuu ku siiyay inuu gaalada dib u raaco qoladatan heshiis baan la galo heshiiska ma buriyay buu nabigu leeyahay raac أبو سيروس كسر راعي لحد مركو مريم بان من كلا وضع هذا دلون الله سكشة كيستو وكرم مدن بايري سيفتا يدوا في عنته بل هي سيفتا دم في عنه وكقاضي سجود هشيس نكو مشري الله بدي مد بمضح كشرة كي كلنا وعرر وسائري مدينة وحصاق قالين إن أرديان أحسن مركزنا بيقول كاني مشكلة بلاي وصارك أبو صير أرديا كصوت بقالو بهشيسين الستة سيفتي ninkii baa warramo wuxuu yidhi labadeedii ninna wuu dilay dee anna darqan ku soo baxsado nabigu abu basiirkii wuxuu ku tilmaamay inuu musciru xarbiyey kani waa dagaaloogay hadduu lahaan lahaa cid yacni taageertoo kale macno ah abu basiir wuxuu fahmay mar labaad hadday gaaladii timaado in haddana la celin doono dabeetana madiine buu iskaga baxay meel aan tiro tiriga nebi maxamed maamulo ahayn buu tegay calayhi salaatu wasalaam
waa waddaday quraysh shaam ay u marto halkaasuu ka jabhadaystay isagu markaa xeerka madiina xukumiyo dowladdan kuma jiro cidlu uga baxay quraysh safaradeedii buu nafta isugu keenay muslimiintii makana wixii baxsanaya marka nebiga uma baxsanayaan isagay ku biiraan jabhad cusub baa ku furantay nimankii quraysheed jabhadda nebigu mas-uulka ma aha haddii la laayo iyo hadday wax dilaan toona isaga kama tirsanayo dowladdiisa xaggaasay joogaan akhiiran iyagaa qurayshi soo codsadoo yidhi nimankaas bandiga qodobka ah laga saaray heshiiskii iyo wixii naga yimaada waxba ha soo celinaya kula joogaan abu basiir oo 300 oo ciidan haystaa waraaq nabigu soo diray inuu soo xaroodo isagu wuu xanuunsadayba uu geeriyoodo madiina ma soo gaadhin ragga intii kalunba soo gashay maxaan uga jeedaa nabi maxamed heshiis abuu galay heshiiska hadda eeg waa nin muslima oo gaalo ka soo cararay in lagu celiyaa ku qoraa dabeetana wuu fuliyey dadku maanta ballamada iyo heshiisyada iyo qoraalada iyo waxay saxeexayaan waxay u haystaan iska formality war formality ma hay waadin ama ha saxeexin oo ha gelin ama fuli islaamnimadu waa taa laba saxaabi oo soo hijrooday dagaalkii badar xudayfa ibn al-yaman iyo abihi ayaa la qabtay gaalada qabatay waxay yidhaahdeen ciidanka nabi maxamed baa ku socotaan waxay yidhahdeen maaha madiinaan anagu ku socon lama la garanayo maaha waa yamaniyiin madiinaan iskaga soconnaa bay yidhaahdeen waxaa la yidhi maaha waa idin sii daynaynaa bay gaaladii tidhi markaa bishart inaydan nebi maxamed iyo ciidankiisa u tegaynin ee magaaladaa sheegaysaan aa qabanaysaan waayahay bay yidhaahdeen nebi maxamed maalinta tan calayhi salaatu wasalaam waa maalintuu ciidan ugu jeclaa waayo isagoo aan dagaal ku talagelin baa dagaal qabsaday ilaahay waa maalintuu baryaya lahaa ilaahow kooxdaa yar haddaad halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo ducadii nebi maxamed ee maalinta badar bay ka tirsanay waxa uu yimi xudayfe iyo aabihii waxay dhahen ilaahay rasuulkiisa iyo nimankii gaaleed wayna qabteen heshiis baanu nula gallay inaanan kuu hiilin inaanu qabanno magaalada madiina dee adna waa kanoo dagaal baad gelaysa adaanaanu kuu soo hijroonnay ee maxay kula tahy nebigu wuxuu ku yidhi nafii lahum cahdahum xadiisu saxiix muslimku ku yaala nafii lahum cahdahum wanastaciinu bil kuwanna ballankoodii baanu u ifinaynaa gaaladana ilaahay baanu u kaalmaysanaynaa iska taga buu nebigu leeyahy u fiirso maxaa loo oofinayaa ballan inaanay ciidanka nebi maxamed gelin ayuu nebi maxamed leeyahy waan u oofinayaa maxaan uga jeedaa qadiyadda tani u adkaynaya waxaan u adkaynaya waxa weeyaan inaynu garanno marjaca dadku hadday isqabtaan meelay ku kala garbaxaan waynu jiraa waxa lagu kala garbaxayaa kow waa qur-aanka iyo sunnadu wixii ku soo degay laba waa wixii heshiis la galay ee dadkaasi ay ku heshiiyeen ee aan sharciga ilaahay khilaafsanayn waa waxa lagu kala baxayo ka midi nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu waa wixii ay sharti ka dhigteen wixii nin waliba uu sharti ka dhigtay heshiis lagu galay waa qasab in la raaco idan ayuha alikhwa qodobka saddexaad aynu u baahanay waxa weeyaan hiqa min annaas inaynu garta u dhiibanno ima inuu xaakim iyo qaadi muslim oo dee loo tegayo lagu kala garbaxayayay haddaan dowlad iyo qaadi iyo xaakimtoona jirin maxaa la samaynayaa shareecad waxay noo bannaysay xakam wax la yidhahda in la sameeyo dadku cid ay ku kalsoon yihiin aw hebel iyo sheekh hebel iyo kaas baa inoo garnaqaya hadday labada daraf ku heshiiyaan way garnaqi karaan labada daraf hadday ku heshiiyaan إلهي وحليه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم مسألة هذا حكمكم هل الحكم من باب الولاية أم بباب الوكالة مسألة فقهية لكن وحين لأن هذه قرطة لقلوا أقبلان وأنك إن لفليوية إن عد قر لو ديبته دي النبي محمد بأو ديبته عليه الصلاة والسلام سقي يهود مركي ويرري بنو قريظة أخيرا وحي أقبلين إنه كلا حكومة سعد بن معاذ بانو أقل يبين هذا إنه كلا حكومة نبي قلنا وحيد أنا وأقله
sacd ibnu mucaad baa waxaa la yidhi waxaad kala xukuntaa muslim iyo yahuud dabeetana wuu xukumay xukumkii uu xukumaana la fuliyey غزوة بني قريظة dadku xakam way samaysan karaan markaa xakamku wixii uu go'aanka gaadho markaa ilaahay wuxuu leeyahy wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcaثuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq allahu baynahuma in allaha kaana caliima khabiira ayuha alaxiba waxaan rabaa warkan inaan soo koobo ninkii faahfaahin rabaa durusta kale ha u noqdo warkani wuxuu yahay war dadka kama dhib badnin kamana gedisnin koox yar baynu nahay oo bini aadam aada u tiro yara marka basharka dunida ku nool loo eego soomaali waa dad tiro yar waa dad diin iyo dhaqan iyo af iyo wax walba wadaaga dhul iyo meel walba laakiin waa dad garan waayey dhibtooda siday u xallilaan waxaa laga yaabaa idinku dadka markaan inta badan la hadlo dabadaa jooga waxaa caqligoodu ku baxaa waxaa ka jira waddankii iyo saa dowlad loo dhisan kari waay saa dhibi uga jirta iyo waddankii waxaa ka jira waxaan idin leeyahay kama sokeeyaan kuwa dabadda joogaana idinkoo haysta waxaa cuntaan iyo waxaa cabtaan iyo shaqooyin iyo kan iyo murankiina wuxuu taagan yahay jaaliyado yaryar iyo masaajida iyo organisationno yaryar wax yaroo lahaydeen dhammaantood waa filiqtan iyo qabsi iyo ishaysi inta ugu badani waxaa la mid ah reerihii iyo qoysaskii iyo reerihii meeye yurub iyo north america waa la kala tegey yani waxaad odhan kartaa guur kastoo dhaca intiisa badani wuxuu ku gebagaboobaa maxay in badanoo ka mid waa furitaan buu ku gebagabooba maxaa mashkiladeennii noocan ka dhigay maxaa ka dhigay haddiiba aynu isqabanno un inaynu isa sudhnaanno isdillo ama aynu kala gogo'no un maxaa xal ka dhigay warina kala rar waxaa xal ka dhigay waxa weeyaan ma aha inaad dadka ka dhib badantiin soomaaligu inuu yahay qof caqligu engegan iyo dadka ka dhib badan ama dadka ka garaad yar ma aha aniga sawirkayga waxa weeyaan inaynu gar xunnahayo inaynu garan weynay qaabkii aynu mashkiladeenna mashaakilkeenu kama badna mashaakilka bini aadamka laakiin qaabkaynu u solve garayn lahayn solutionka ugu raadin lahayn u xallili lahayn baa lumay oo ah baynu leenahay saddexdan sharcigu sheegay ayuunbay reconciliation theorygoodana ku dhigaan forgiveness iyo waxaana idiin sheegaan waa intan shareecadu sheegtay idan ayuha alaxiba markaan qadaayaadkan tilmaamayo wadaad baan ugu horraysiinaya laba wadaad markay isa sudhmaan lama kala fujin karo nin iyo gabadh isqabo oo nolol wada wadaaga oo caruur iska dhalay oo wada joogay markay isa sudhmaan lama kala fujin karayo organisation yar iyo jaaliyad yar iyo wax yaroo ay lahayeen markay isqabsadaan reerunbaabay u kala boodaysaa lama kala fujin karayo cid gardaran baa cidi garan mayso intii reer hebelana dhan unbay u baxaysaa intii reer hebelana dhan bay u baxaysaa maxaa wixeenna sidaa ka dhigay miyaynu ka xunnay dadka maya kama xumin kama xumin kama xumin kama liidanno kama caqli xumin kama aragti liidanno laakiin waxa weeyaan saynu mashkiladda u waajahna inaynu u xallilaaba wax ka qaldan yihiino mashkiladdaa waa inaynu u waajahnaa kow inaynu isu dulqaadanno oo wax yar oo aan weynayn inaynan buunbuunin oo cirka ku shareerin ee ciddeennii cafiyi karta iska cafido noloshu normal noqoto mid in yar cunay iyo wax yar oo isweydweydaaroo qof sameeyey iyo arrin aan cuntaminoo qof ka dhacday iyo waa la cafiyi karaa iyo ma roon inaad cafida iyo in organisation kuma baaba'o qof maalin kugu qaldamay ama organisationka qalad ka sameeyey innaga waxa weeyaan waan ma ogtahay ururkii yaraa wax la sameeyey ninkii hebel aha waxaa isu sameeyey waa la faafinaya waa la faafinaya waa la kala kooxaysanaya waa la kala boodaya war ninkii hebel waa bini aadamo waana gafaynta tane solution kala raadi waa la iscafiyay way dhici weyday waa la isu tanaasulaaye dadka isku soo dhaweeyo isu soo jiijiido isu tanaasula way dhici weyday gar aqbalo oo markaa garantaan waxay ku gabagabowdaha ku dhammaato wax dambo hadalayaa la maqli
dad labadaa soo dhaafto waa inaad qabashaa gar gartu waa inay noqotaa ilaahay kitaabkiisa wixii ku qoran iyo wixii heshiis idin yaallay aan khilaafsanayn in laydinku gar noqo dad kalsooni lagu qabaana inay idin gar naqaan waxa go'aanku soo baxo waa inuu fulaa markaana waa inaad qabashaa ayuha alaxiba waxaan kale aynu akhrino waa laynoo heshiiyey iyo waddankeeni waa la baabi'iyey iyo dowladaha gacanta kula jiray iyo NGO baa jiray waxaana weligoodba way jireen ma mar bay dunida nabad ahayd wax jira ma jiraan weligeedba duwalka jawaarka kula ahaa ama jaarka kula ahi dee ma dowlad baa jirta dunida la odhanayo maslaxadaada ha raadsanin miyay jirtaa ma jirto waa iska caqli xumo inaad tidhaahdo etoobiyana waa shay iyo south africa iyo dad kale intaa meesha ku jiro qaar baa xoolo ku shaqaysto maraykan iyo baa ku jira kuwo kale oo maraykan ma cid baa odhanaysa war dantaada ha raacanin aday hayd inaad taada raacato ma aha waddan kale eediisu aday hayd inaad wax iska celin karto taada raacan kartid oo midaysan kartid oo shaqadaada wadan kartid saxaabadii jabtee yidhi anna haada ilaahay wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum reeraha kala xoog batay cidina cid kuma tidhaahdo idan ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay canaan maaha laakiin waa inaynu wax isu tilmaamno caqliga adeegsano tafogna kama hadlayaan ugu iyo Soomaaliya iyo waxa ka jira waxaan ka hadlayaa meelahaynu ku noolahay iyo waxa ka jira reeraha iyo qoysaskan burburaya organisationadan yar burburaya maxaynu halkan wax isaga celin kari weynaa ama carruurteena loo guray ama waynu ururi kari weynaa meeshana nimaan urursanayn oo xoog jira ahayn wax iskama dhiciyo markaynu ururi kari weynay ayaa cid waliba ina fagatay qaanuunka dee waa la isku qalloociyaa haddaad tamar yar tahay isagoo qaanuunku yaallo ayaa adiga lagugu qalloocinayaa laakiin haddaad wax iska dhicin karto waad iska toosin kartaa laakiin qof iyo laba iyo saddex iskama toosinaysaa waxaan warkayga ku koobayaa caqliga aan dib u isticmaalno diinteennana u noqono wasala allahuma calaa nabiyi moxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin jazaak allahu khayr sheekh mustafe dumar fara badan baa jooga halkan iyo rag fara badan oo ugu tabarucay masaajidka abu hureyra mashruuca ay ku jiraan marka waxay kaa codsanayaan inaad ubadkooda iyo iyaga iyo waalidiintoodba aad u ducaysa insha allah maadaamaad musaafirna tahay insha allah بسم الله إلهي سبحانه وتعالى دمانتين خير كهنا وضوافجيو آمين وحي صدقاء أعمالي صلاة خير سمي سنين إلهي أنا أقبل سبحانه وتعالى آمين أنت ندمتي والدينتنا الله نحرست آمين أنت يري أبطك أنت لقور ورينا إلهي هاي صلاحي آمين وحي خير الدنيا آخرين وقشر الرب هينا وافجيو آمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين